بسم الله magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiqayuum Sheekh Cabdirasaaq Muuse Aadam waxaan kamid ahaa dhalinyaradii wax ku soo barbaratay degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib waxaana kaga biiray degmada Dhobley waxaan fuliyay sanadka 2014 ilaa 2015 oo operationka Dhobley waa waqtigan fuliyay Kismaayo 2016 aakhirkeedan imaaday wixii 2016 ka bilowday 17 ka hawsha toos u bilaabatay up to now hawlaha aniga aan qabtay aan fuliyay ilaa 12 mission ahayn operation wayna ka wada sinaayeen missionkaas wuxuu ahaa targetka uu shacabku buu ahaa waana mission lagu guuleysto successful noqdo waay shacab fara badan oo masaakiin ay wax ku noqdeen inta ku dhimatay Allahu naxariisto adii ugu horeysay waxay ka dhacday aan ka fulinay golol isgoys golol ilaa argo laakiin golol ay u badneed 6 bambaan ku tuurnay 6 bambo laba fayl ay noqotay oo way qasaatay ka tibtay afarna way qarxday inta kadib waxaan u wareegnay Sinai godka biyaha meel maqaayad lagu shaaxeynayay oo dhalinyaro ay ku shaaxeynayeen laanduna inay ku dheelayeen ku tuurnay bamba ku tuurnay dadkii dhalinyartii meesha u badnaayeen waxyaalaha ka soo gaartay dhaawac iyo dhimashaba midda kadib quraca looska baan dib ugu soo noqday aan imaaday labo bambaan ku tuurnay oo aan ka fulinay labadii bambana shacabban bay waxyeelo ka soo gaartay meesha wax lagu tuurana waa meel kabarada qaadka iyo bulshada shacabka isugu yimaadaan ahayd midaas haddaan kasoo tagno xareed yarow waqti dhow ahayd Rotano iyo xareed yarow argo masaajidka Uthman bin Affan waxaa horeeyay xareed yarow horeysay waxaa horeeyay Rotano horeysay kadib xareed yarow ahayd waa habeenadaas hawlgal culus baa socday lama amniga sameynayeen marka hawlgalkii u dambeeyay xalay u dhacay bamba tuuriskii shacab wax ku noqdeen qurac loosku ka dhacay wixii ka dambeeyana hawsha markaan fulinay oo bambadii qarxday oo shacab wax ku noqdeen lama amniga hawlgal u sameynay baan ku soo dhacnay sidii marka lama amnigu gacanta noogu dhigeen saddexdeena fulin baa ahayn oo magaalada gudaheeda aniga oo touristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bambo oo warbixin kasoo gudbin jiray meeshaas axwaasheeda iyo sida ay tahay iyo dhaqdhaqaaqa markaas jiro dadka populationka inay ku badan yihiin inay ku yar yihiin suuq fiican meeshaas ma tahay meelaha kabarada qaadka oo kale zoonahaasa badanaa target ku ahaa marka shanteena saasaan ku wada shaqayn jirnay oo hal ninan baan hoos tegi jirnay labada nin saasay kusoo qaadi jireen oo hawsha halkaasaa loogu soo dhameyn jiray saddexdeenna Xuseenkana waa loo keeni jiray labadeena kalena waa hawlgeli jirnay badanaa aad waxaan u wada kulmi jirnay midka xogaa macluumaadka baa habeenkii 5 saac 6 saac oo kale Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir waan isu iman jirnay waan tashan jirnay oo shaqada habka u dhacday iyo wixii information uu soo helay habkii loo process gareeyay informationkaas macluumaadkii la helay
qaabkii wax u dhaceen wixii ma guuleystay mise waa khasaaray sidii marka annaga si toos habeenkii labadeena u kulmi jirnay Xuseenkana waxaan kulmi jirnay un markaan baashka qaadayno iyo galabiyii marmar dukaankan ugu min jiray oo biyo wax ka qaadin jiray marka laakiin yarka kale Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir isaga habeenkii isbuuci 5 jeer wada kulmi jirnay marka wixii warbixina halkaasaan isku dhaafsan jirnay goobta bambada lagu tuurayo waxaan ku xulan jirnay meel overcrowded meel bulsho aad ugu badan tahay sometimes laakiin information marka la soo gudbinayo haddii ciidan meesha ay hawlgal ka sameynayaan oo kale ama ciidan badan ay joogaan habeenkaas hawsha lama qabanayo waqti kale dib loo dhigi inta wax ay ka xalismayaan xogta badana si sax ah ugu soo gudbin jiray xogta marka la soo gudbina macluumaadka waxa lagu qiimeeyaa meesha dad badan ma leedahay haddii dad ku yar yihiin meeshaas laguma sameynayo qarax lagama sameynayo laakiin dadka haddii ku yar yihiin ay dadkii ku badan yihiin macluumaadka degdeg buu igu soo gaari ila wadaagi jiray marka saasay arintu hawshu u socotay aniga horta marka hore haddaan iska hadlo magaalada waxaan ku joogay jaamacadan dhiganay jaamacad Plasma public health caafimaadka bulshada sanadka semester 7 hadda galay oo haddaan processkeeda ku jira magaalada gelinka hore ma shaqayn jirin Xuseenka wuxuu qaban jiray dukaan u lahaa koorsooyin wax ka baran jiray meel macad oo meeshaas ku dhow ka akhrisan jiray mid kale meel farmasi ka shaqeynay macallin uu ahaa wasaaradda waxbarashada Jubbaland ka diiwaan gashnaa macallin wuxuu ka ahaa iskuulkan barwaaqo lahayo barwaaqo maadooyinkan Soomaaliga tarbiyada marmar biology maadooyinkaas loo dhibi jiray laakiin maadooyinka tarbiyada iyo Soomaaliga u badanaa u dhigi jiray maadooyinka fudud oo system ahaan iska fudud oo qof walba u dhigi karo dadkaas kulley xidhaawna Ilaahay bogdhayo wixii geeriyoodan Ilaahu naxariisto xisaabtana maalinta qiyaamo Ilaahay aanu isoo annagu nagu xisaabin doona xisaabtoodana way leeyihiin Allah weyna u garqaadi doona